Salaamullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada janalkeena waa walaasha Anisa Style maanta iyo bariis furfur ah oo lagu afurayay oo dhammaystiran iyo chicken-kiisii bariiska waad aragtaan waa bariis biryani oo furfur siduu dheer yahay maasha Allah isagii oo dhammaystiran please dhammaystiro video waad ka faa'iidi doontaa. Okay, bariiskeena haddana wax sample ah oo yar ayaan ka sameynayaa. Waa kaliya inta meesha taalo basal, kabsar iyo waxa yar oo heelka iyo qorofarka ah, xabada maraq digaaga, qashin kale laguma daraayo, digirtaas iyo chicken-ka inta lagu hagaajinayo kaliya. Waa wax iska easy ah oo haddana bahalka maxaa la dhahaa geedgeedihiisa iyo dadka markuu sooman yahay waxyaabada badan way dhibtaa maho. Marka hadda waxaan haystaa steak chicken iyo basal, toon iyo kabsar, qorofar iyo dhago yare 3 xabo dhan. Okay, digsi ayaan soo qaatay dabkaan saartay. Saliid ayaan kusoo shubtay inta ay ahayd jug ayaan ku siinayaa waxba kale ma reebi dooni. Sidoo ahaa ayaan ugu ridaa insha Allah basashina si yar maxaan kusoo jarjaray mashiinta basasha lagu jarjaro heelkii wixii dhan shug ayaan ku siiyay. Wax kaloo lagu darayo malahan ila socda mar Allah markay basasha shiilmato bariiskiisa le kor looga keen doonta. Waa wax easy ah qof walbana uu sameyn karo laakiin aadna bariisku u macaan yahay. wax badan malahan dadka laab jeex iyo waxbana kuma kicin doona insha Allah. Okay, insha Allah saada waxaan hadda sidoo kale hagaajisanayaa chicken-ka si hagaajinaya waxa ku dara paprika wax yar oo xawaajiye aan isku darsadan hagaajistay oo chicken-ka aan u isticmaalo waxa kale gududan oo paprika kana waa chicken-ka loogu talagalay aad ayaan uga helay maalin ama iska soo qaaday tijaabo haddana aad baan uga helay asaga waa xawaaji oo loogu talagalay chicken masala inuu yahay jeclahay. Okay, waa maraq digaag aniga maraq digaag hal cunug baa wuxuu iga qabaa maraq digaagyada badan wuu nacaa halka maraq digaag bas ayuu wiilkayga isticmaalaa. Maraq digaagana wax cusbo badan ma lahan marka sida oo la socda aad buu u dhadhan yar yahay. haddana waa kana digsigan chicken-kina waa kaasa waa isku walaaqa chicken-ka meel la dhiga insha Allah step by step oo idin tusaya la socda video-ga dhameyso wax yar oo food color ku daro oo orange ah basasha way soo jabtay ayada naftirkeeda haddii basasha aad kaaga gududato color ayay u sameynaysaa bariiska aniga ma jecli inaan basasha gubo. Okay, bariisna bariis cad ah ayaan u baahanahay inuu ka soo baxo. wax yar oo bur ah oo qaadada cuntada dhan ayaan ku soo daray oo bur ah chicken-ka saasaan u qasay waa la ridiyay sida ayaan u soo qasay aad aragtaan chicken-ki haddana bariiski waxaan ku daray wax yar oo xawaaji dhuudhuub ah xawaaji oo adiga bariis ani hagaajisto xawaaji dhuudhuub iyo xawaaji buur iyo waxyaabaha isku dardaray insha Allah haddaad ka heshiin waa idiin soo gelinaa haddaad jeceshiin daneynaysaan xawaajida anigoo isku dardarsado. waa maraq digaagan cusbo ma lahan midibna uma yeelayo bariiska intan oo kaliya waayo bariiskeenaba inta ku saabsan yahay ama ka kooban yahay. basashan intan ka badan ma sii karayn doono because haddii aad sii guduudisid color ayay sameynaysaa. bariiskii oo mar hore dhaqay oon qalajiyay aan soo qaaday waan ku darayaa. Okay, bariiska qiyaasta reerkaaga adaa garanaysa aniga waa 3 koobka shaah ama 2 koob iyo bar meelaha aad qiyaastaas waayay
aniga wixii oo iska qiyaastaa le marka qiyaasta familkaaga adaa garanaysid waxaan u maleeyaa dhadhanka iyo saliidda leed ku daraysaa basal iyo intaas waa isku mid haddii uu badan yahay hadduu yar yahayna maraq digaaga iyo waxa uun ka yaraynaysaa insha allah ee saliidda 1 iyo 2 inta biyaha ii kululaanayaan halkaasna waxaa iigu karaayo basbaas shini ramadaalka dhan waxaan u maleeyaa 2 mar bis ayaan sameeyey markii labaad waan sameynaayo hal mar aan iska karsadaa waxaa geliyaa fridge-ka marka waa aragtaan basbaaska shinigina maanta lama kala shiilin oo isku dardara leh yaanyadii raqaygii basbaaskii wixii oo shiidan insha allah asagana geesuu ka karaaya bariiska biyo ayaan kusoo daray karkar ah cafwan maa idiin tusi markaan biyaha ku daraayay haddana alumiya bariiska marka hore biyo oga daraba alumiyan afka oga xiray alumiyada korkeeda oven ma gelin rabo alumiyada korkeeda ayaan waxaan ku shubay biyo cad oo qabow ah dee marka daboolka u dhuujinaa insha allah mana furfuri doono mana walaaqi doono dee bariiska halkiisiisu iskaga karaaya ovenna ma gelinaayi dadka waxaan ugu talagalay korka la haysta ama dhuxul afrika ayagaa u dhuxuleyn karaanba maasha allah haddana jikinkii ayaan gudagalaynaa jikinkii ayaan sameynayaa jikinkuu ii raadsan yahay waxaan soo diyaariyay bahalkan ama rotimia adi waa bahal oo jikinka la dhex gelgeliyo aad ayuu u qurxiyaa jikin isteegaana sameynayaa ama rooti isagoo rootina wuu jiraa bahalkaas isaga caadiga galeydan ahna way jirtaa marka wijoon aa haysatada isticmaali doontaa insha allah waxaan soo qaatay maqli waxaan ku shubayaa saliid waxaan rabaa idina jikinka halkaa bariis jikinka waxaa ku karaaya basbaasiniga iyo bariiska iyo jikinka okay maanta afurka iska easy u ahaa afur oo bariis ah maasha allah anaga bariiska wixisna maanta xoog buu noola macaanah ma garanay okay halkii ayaan budadii aan kala baxbaxsaday jikinka saas ayaan ugu soo qaadaysaa dhacaankiisa wuu gala waa ujeeda already chicken steagan si uu balbalaaran yahay oo uuna dheerdheer yahay marka steega mid dhuub ah waad helaysaa mid balbalaar waad helaysaa annaga ma aqaanada meelaha kale annaga laakiin insaas aad jeceshahay waayo oo heli kartaa jaleydii ayaan saa u gelgelinayaa meel walba waan ka gaarsiinayaa saliidda ayaan baraaweeyey gobol yar jikina ku fiiriyey okay saliidda aad day kaaga gubato waa naftarkeeda cuntada dhadhanka way ka dishaa marka aadna yay kaaga gubanna madoowaanin waxaan ka qaraacayaa galeydii waan xadhigaa insha allah like waxaan u sameynayaa like aniga sidaan u samaysto kalluunka insha allah asagana waan soo gelinayaa waxaan u maleeyaa hataa inuu ku jiro sidoo kale hadda waxaa ila noqotay inaan steega jeexjeexo sida ayaan u dilaacinayaa waayo dhadhankana durba inuu karana way ii fududeynaysaa dhadhankana maasha allah guduhu ka galaya okay sidaas waan jeexjeexayaa ma goynaaye iyuna mindida salka kaa gaarin labada dhinac saas ooga jarjar
marka waxaa kuu fududaanaysaa maadaama uu jikinka karsaneen oo biyo lagu karinin inuu durbo ku karo. Okay. dhadhankana guduhu ka galaya laftuu ka raacaya. saas u jeexjeexaysaa. labadii hore oo dumaysa usoo laabtay. waa gadine dhinaca kale u gadinaysaa. saliidda isaga markuu karo jikinka wuu isaga iska tufaa. saliidda dhan kaama soo raacayo. saliid kaama soo raacayso. sida u jeexjeexnaa dhadhanka dhan waa soo gelgeliyay dula dildilaaci. laba mar aan saa ugu gadinaa. waan saaraa boorashkaas ama galeydaas. waana mid jikinka loogu talagalay. meelaha spicyada jikinka lagu gadaa laga helaa. kana kadalik inta dambe dhan waan jeexjeexay. way ku fududaynaysaa inuu dhacaanka ama testiga dhan waxa dhan ka galo gudaha. waxay kaloo ku fududaynaysaa inuu durbo karo. okay. faa'iidaysa wacan. please channelka haddaad ku cusub tahay inaad subscribe saartid ha iloobin hanaga baqeelin. waxaan isaga waqtiyaa la gelinayaa waa inaa marka inagana aad xaqiisa bixisin insha allah. subscribe ka saara, like saar, sii share garee. laga yaabo baay u baahan inaad ka hesho inay jirto. waan gadiyey. labada dhinaca ka rogaysaa. maasha allah. hadda bariiska halkaasuu nooga haray. bariiska markuu kara leh hadda wax kalama taabanayo. steegaas waxa ii dhiman chicken steegan aan karinaayo. basbaaskiisa keliya shalay halaas keliya lagu afureeye. markuu gudihiisa saas u ekaanaya markuu karo. like kulluun ahaanu aad u cadaanayo. dadka kulluunka neceb badana ogahay waxaa jira kulluunka aad u neceb laakiin aniga adduunka ugu jecelahay. midaan necebanahay laakiin dadka kulluunka neceb oo kale ma aragta ani hataa wiil kulluun necebaan haystaa. marka jikinka saana ugu kariyo insha allah. waan gadgadiyey. sidoo kale hadda waa bixisuu diyaar u yahay. jikinkeeni hadda waa diyaar. waxaan kaloon idiin tusaaya basbaas shiniga markuu karo waa inuu saliida tufaa. saliida ma aragtaa saas inuu u tufaa. saliida aad mirtaan dawey aad ku garan karto inuu basbaas shiniga kara waayo. waa inuu fadhiista asaga dhan ee saliida uu soo tufaa. saliida dhan iska tufaa oo sida soorta u badbadaa. darbiyaha dhan uu ka haleynaa iska ilaali. aniga jikada geesas dhan uu ka haleeya arkaya. okay. kadib mar haddaad istiraashadaada sii hayso iska mari. dugsiga ku ag dhawaa korkiisa soo ka dhigay.
saliidda sidan markay tahay waan miirayaa. Baaquli ayaan ku miirayaa. Doqac saliid ma lahan, saasaan u adag yahay. Walahi saa hal mar lee basashii, basbaaskii, yaanyadii, raqayga isku shubay. Daboolkiisa u jiiday. Isagana maalin idin soo sida dhamaystirna u sameynaa idin tusi doonaa. Waa kaasaa jikinkin waa karay. Waa labadii aad ogeedeen ma laba kale ka dambeyso weeyaan. Steak dhamma 7 xabo ii noqday, 7 mir keli ayuu ii noqday. Haddana bariiskii u tageynaa, wakaasaa biyihii kor insha Allah luumiyada ka qaadeynaa. Biyaha ay kaaga dhex daadin iska ilaali. Si degan waa inaa u qaadaa. Masha Allah bariiska waa aragtaan. Si furfur oo cadaankana aan jeclaa maanta. Bariis cadaan oo iga qabtay because of xawaajiyaasha qaarkooda bariiska midab u yeelaan. Waxaa isticmaalayaa digirta. Digirtaas waa tan diyaarsan tahay. Ma inay karto ma qurux badna. Iyada naftirkeeda hadday karto nahdo ka tagtaa. Waana tan fridge-ka oo diyaarsan oo karsan. Marka bariiska uu karo lee kor looga daraa. Bariiskeena waa aragtaan soo furfur u yahay. Unu dheer yahay. Kan hoosan soo bixinaya hadda. Ay digirtaan wax yar inuu umuto yeesho. Umuto yar yeelato digirta. Saasaan ugu digsiga waxaa u maleysaa inuu cariiri ku yahay. Laakiin si bariiska furfur waaye waa aragtaan idinkaba. Waana cadaan ani muhiimadda iigu weyn wuxuu ahaa inuu bariiska color u yeelan cadaan u yahay. Wax yar oo orange color orange kor uga soo daraayo wuuna karay. Dhadhankiisa iyo caraftiisa iyo tastigiisana lagama sheekeyn karo. Waxaan ku daray color yar oo orange ah. Yar orange color aan ku daray. Haddana saxankeena ayaan ku diyaarsanaynaa. Xabadii salarkan geeska ka soo saaray. Haddaad rabtid booska salarka waxaad isticmaali kartaa jibsi iyo wax kale iska saaran kartaa. Laakiin aniga salar iyo chicken keli ayaa lagu cunaa jibsi uma sameynin. Salarkan intaas uu ka koobnaa. Yaanyada yaryarta ah salar iyo basal cad iyo baashaas. Oliivada. Kasaa bariiskeena sida oo quruxda badan maasha Allah tabaarakallah. Sidoo kale saxankii aan hadda diyaarsanaynaa. Waxaan ku soo daray basal baar oo si waaweyn u soo jarjaray. Saladka. Aragtaa inuu furfur yahay bariiska. Soo kala daadanayo xabad u dhow ma lahan.
ما شاء الله تبارك الله aad ayuu u qurux badnaa una macaana maadaama aan afurka ka rabo wax badan kuma aan dardarin xawaajiyaasha faraha badan iyaga naftirkooda caafimaad darre ay keenaan heblow kale sactar nacnac bacbacbacbac waxaas ma aragteen ma fiicna markaasaa isteegeeni labada dhinac kasoo saartay maasha allah casho dhammaystiran ama fur dhammaystiran ama cunto kaa dhan intaas ayuu ku kooban yahay videogeena waxaa